odaybaa inankiisu ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinayee bal maanta 1,000 shilin aabba ii keen buu ka yidhi 1,000 shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii uun ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tegey baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya 1,000 shilin isiiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooye sii way siisay odaygii aabbihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeya iska dhigay buu aabbo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1,000 shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiibu hoosta ka yar eego saasuu eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan 1,000 shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqadaaba taqaanaa 1,000 shilin ii keen hooyadii buu ku yar wareego hooye lacag isiiyo maxaad ka dhigay way siisay hooye moogta hooye macaan uu keeno uu ka qaado dabkii unba haddana ku tuura keena bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee oo u tago hooye 1,000 shilin isiiyo war lacagta beryahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma kuu sheega ahaa aabbaa igu yidhi ii soo shaqee shaqo ma garanayee isagaan markaa u geeyaa 1,000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxay oo buu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamu shaqo tegey dad markaa wuxuu arkay nimana qalbisaya uu arkay u waraysto maalintii bisaad soo shaqaysaayo caynkaasoo 1,000 shilino uu la shaqo tego adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan la isku qiimaa markaa uu keenay odaygii aabbo oo markaasuu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaalide markaasuu yidhi oo maxaa jawab buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba sawniga gubayey ma may aabbo tani tii hore way ka duwan tahay tan hee tan waa dhidid baa ku baxay waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo wakhti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa